shirkan wadatashiga ah ee labada maalmood ka socday xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa looga hadlayay qorshe laba geesood ah oo kala ah qorshe hawleedka sanadka cusub ee xukuumaddan iyo hiigsiga sanadka 2016 ee dawladda. Shirka maanta waxaa ka soo qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabduuli Sheekh Axmed Maxamed, xubnaha golaha wasiirada hay'adaha ka socday qaramada midoobay oo ay ugu horeyso xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya UNSOM, safiirada dalalka Soomaaliya saaxiibada la ah wadamada deeq bixiyaasha iyo xubno ka socday AMISOM. kulanka maanta qodobada looga hadlay waxa ugu muhiimsanaa xasilinta dalka Soomaaliya iyo dhameystirka qorshaha dawladda muddada u harsan, iyadoo xukuumaddan ay soo bandhigtay istaraatiijiyadeeda ku aadan diyaarinta howlgalkeeda ay dhowaan bilaabi doonto. Ku-xigeenka Ra'iisul Wasaaraha Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa warfidyeennada la hadlay kulanka dhammaadkiisa kadib, waxauna sharaxaad ka bixiyay muhiimadda uu lahaa kulankii maanta, iyadoo wadamada caalamka ee shirka ka soo qayb galay la hordhigay fulinta wejiga cusub ee nabadgelyada Soomaaliya iyo doorka hogaamineed ee dawladda Soomaaliya. Sida uu sheegay wasiirka, waxa shirka maanta uu ku saabsanaa in aanu soo bandhigno qorshaha ay leedahay dawladdu oo ku salaysan aragtida fog ama hiigsiga fog ee ay xukuumaddan cusub ugu tala gashay inay dalka ay ku hogaamiso. waxaanu kaloo runtii soo bandhignay qorshe hawleedka aan u baahannahay inaanu la wadaagno international community-ga. waxaa aad iyo aad xoogga loo saaray hawlaha ay tahay in la siiyo priority oo ay ugu horeyso arrinta nabadgelyada iyo xasilinta dalka. waxaa kaloo aad iyo aad looga hadlay in loo baahan yahay hagitaanka barnaamijka ku saabsan qorshaha hawleed ee dawladda inay dawladdu hogaamiso. donorska ama dadka deeqbixiyaasha iyo hay'adaha kale international community-guna ay dawladda ku taageeraan qorshaha ay waddo. arrintaa runtii si cad baa looga hadlay. waxaa la sheegay Soomaaliya oo nabad ah inay dani ugu jirto dadka Soomaaliyeed oo dhan, Soomaaliya oo nabad ah inay dani ugu jirto dawladaha jaarka ah, Soomaaliya oo nabad ah inay dani ugu jirto beesha caalamka oo idil. waxaanu runtii ku bilownay qorshahayaga dawladda cusub qaab aan odhan karo waa uu ka duwan yahay dawladihii hore qaababkii runtii ay maaragtay ay u soo bandhigi jireen. waxaanu diyaarinay balaanka 2014 iyo balaanka ama muxuu ahaa istaraatiijiyadda aan ku socon doono inta laga gaadhayo 2016 oo ah teeramka ama waqtiga uu ku eeg yahay dawladdan. dhinaca kale, Ra'iisul Wasaare ku-xigeen ahna Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Soomaaliya ayaa farta ku fiiqay in qaybta shirka maanta wadamada beesha caalamka ay dhankooda ku soo bandhigeen hanaanka ay ku taageerayaan dawladda iyadoo ay hawsha fulinta hogaaminayso dawladda Soomaaliya. runtii kulankan waxaa qayb ka ahaa ujeedooyinkiisa marka hore in la isbarto oo golaha wasiirada cusub iyo beesha caalamku runtii ay isbartaan. beesha caalamku waa partner bay Soomaaliya ay runtii leeyihiin. marka waxay ka hadleen iyagu oo ay soo bandhigeen sida ay uga go'an tahay inay taageero hiil iyo hooba ay u fidiyaan dawladda cusub oo ay isgarab taagaan. waxa kaloo runtii ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay uga dambeeyaan dawladda federaalka Soomaaliya arrimaha fulinta oo iyaguna ay noqdaan wixii talo ah, wixii khibrad ah, wixii support ah inay runtii soo jeediyaan. waxaynu ognahay beesha caalamku inay hanti badan ay ku bixisay dalka, waxaynu ognahay beesha caalamku inay fikrad badan ay ku bixisay dalka, laakiin waxaan odhan karaa maadaama ku meelgaadhkii laga baxay waxaa hadda bilaabmay wakhtigii gacmaha la isqabsan lahaa oo hal dhinac loo wada jeedsan lahaa ayaan odhan karaa. shirkan lagu soo gabagabiyey Muqdisho hore waxaa talooyin dhaxalgal ah shalay ugu soo biiriyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, waana shir ay si weyn u soo dhaweeyeen dhammaan dalalkii ka qayb galay maadaama uu yahay fikir hufan oo ku wajahan qorshaha dawladda kana bedelan qorshaha dawladihii hore Soomaaliya u soo maray. Faysal Muuse Maxamed, Telefishinka Qaranka, Muqdisho.